xukuumadda Soomaaliland ayaa fasaxday qaadka soo gali jiray iyadoo dhawaan laga xiray soo galitaanka qaadkaasi. Haddaba waragta ay soo saareen guddida ka hortagga caabuqa COVID-19 ayaa u dhignayd sidan: ujeedada wargelin habraaca ilaalinta caafimaad. Sidaan la wada socono waxay guddida COVID-19 hore u joojisay qaadka waqti kooban inagoo ka hortagayna faafitaanka xanuunka coronavirus. Haddaba iyadoo ay ka harsan tahay waqtigii muddo ku siman 4 cisho, waxay guddida COVID-19 go'aansatay in la fasaxo laga bilaabo bari wixii ka dambeeya oo ah axad taariikhda 17 bisha shanaad 2020 qaadkuna uu iman karo sidii caadiga ahayd fasaxna yahay. waxayna guddidu soo saareen qodobo habraaca ilaalinta caafimaadka bulshada ayna tahay in la ilaaliyo kuna socda ganacsatada qaadka iyo dadka isticmaala qaadkaba. qodobada habraaca in kolayga qaadku ay ka iibin karaan 2 qof oo kaliya gudaha isuna jira 2 mitir, inay xidhaan qalabka ka hortagga ee afgashiga iyo gacmo gashiga, inaad dhigataan kolayga alcohol lagu masaxo gacmaha, in dareewalada iyo shaqaalaha la socda gaadiidka qaadku keena ay af xidhaan, in dareewalada iyo shaqaalaha la socda gaadiidka qaadku keena ay xidhaan afsaabka iyo gacmo gashiga, haystaana alcohol lagu masaxo gacmaha, in shaqaalaha guud ahaan ka shaqeeya qaadka shirkaduhu dhigaan qalabka lagu baadho xumadda ayna baadhaan mar walba ay shaqada soo galaan, in dadka iibsanaya qaadka ay galaan queue isu jira 2 mitir. sidii hore guddidu u sheegtay, waxaan dadka ku boorinaynaa inaanay isugu iman marfashada iyo majlisyada lagu qaylo midna. go'aankan waxaa soo saaray guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland. Cabdiraxmaan Yaasiin British warbaahinta SBC Hargeysa.